بريس باستا بريلي يا كلامك سجيت في كتفش دلك ودي بقول oday baan iska hayo odayga habluhu inay ka shaqeeyaan maqaaxiyaha hababka casriga u shaqeeya ee ku soo kordhay waayadii dambe magaalada Muqdisho ayaa noqotay mid indhaha bulshada Soomaaliyeed ka cusub. Gabdho fara badan ayaa ku soo biiray ka shaqeynta mihnada loo yaqaan kabalyeerinimada oo ahayd shaqo inta badan ragga lagu yaqiinay oo la aaminsanaa in iyaga kaliya ay ka bixi karaan. waxa uu arkaa walaa horumar anina wax qabsan karo shaqsi ahaantayda dhamaan gabdhaha Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inay wax qabsan karaan oo ay cabsaneen horumar gaari karaan والله قف بفكرته محله ويركع إنه قف محله حنا هاي عمل إنه المقعد كشقين كرن سؤاله وبدل يودينا وحكم ذا سام قاعد أو وش قبل وضعي قف بس يركع قف وحنا واركع قف وحدي عن واقع ضد قارح كلها يعني إنه قبسن كرتت هذا ما قوام جاري ظروف ما كون كلفتي وحياة بس يودينا أنا هان كذا وحنا أركع شقة عن قبنا عيو هرمر لقاله إنه يوصل لنا قبل نكون هرمر واركع marka laga soo tago in gabdhahan ay jecel yihiin shaqadan aadna dareemi karto in ilaa xad ay ku faraxsan yihiin hadana waxa ay sheegeen inay jiraan xilada qaar caqabado ay kala kulmaan shaqadan inta ay ku jiraan waxa ay si gaar ah xuseen in si isdaba jooga ragga maqaaxida yimaada ay weydiistaan xiriirkooda halka kuwa kale ay nafsiyanba iyagoo isku buuqsan yimaadaan goobta kalena dul dhacaan caro iyo qaylo gabdhaha goobtan jooga dhibaatooyinka way iska far badan yihiin qaar wax ku weydinaa qaar lambar ku weydinaa qaar waxay ku dhahayaan laakiin inta badan waa la iska xaliyaa adoo si wanaag ah u xalinaysid dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee jecel in xilliyada dambe ee maalinkii ama fiidnimadii ay waqti ku soo qaataan goobaha casriyeynta iyo caweynta ayaa markay arkeen tilaabadan cusub si dhameystiran u soo dhaweeya iyagoo u arka inay tahay tilaabo cusub oo gabdhuhu ay hore u qaadeen maqaaxiyuhu toobdeed waa meel ganacsi oo qof walba uu shaqaale nooc doon keeni karo wiil keeni karo gabar keeni karo laakiin aragti ahaan in gabar maqaaxi ka shaqeyso waayadii hore Soomaalida dib ay ku ahayd xagga dhaqanka iyo culture-ka iyo dabcan waxyaabo badan oo markaa iyo duruufihii Soomaalida oo aan markaa sababayn in gabar soo shaqeyso waagi hore duruufta ninka waxa uu filan jiray ninku geerisay arigiisa iyo dindintiisa isla raacan jiray wixiisa ka soo ridan jiray marka gabariba baahiba looma qabin in gabar shaqeyso laakiin hadda dhibaatadu waxay iska badatay dadkii administration baa iska dhacay dadkii waa magaalada baa la soo galay baahidii baa badatay ninkii waa ku filan waayay taa marka waxay noqotay waa loo baahday marka gabadha waxa loogu baahday xagga aqoonta loogu baahday inay aqoon ku shaqeyso ama macallimad noqoto ama midiyaha ay adaacadaha ka shaqeyso ama siyaasadda gasho bulshada hogaamiso ama dhakhtarad noqoto saas magaraysa ama xamaasho oo meel kala gasho oo haday iyadu business magaraysa ay abuurato ama inay meel xanuun business abuuran ay ka shaqeyso marka boqolkiiba boqol waxay muuqataa inay waxyaabo badan ay soo kordhinayso waxay soo kordhinaysaa in bulshadeena in civilization ay gaadhay xadaarad inay soo gaartay oo in qof walba income generation soo saari karo oo reerkii wax ku kabi karo marka gabadhu inay maqaaxi ka shaqeyso dhowr qodob bay magaraysaa dhiirigelinaysaa in wax soo saar la helo iyo in magaraysaa lagu kalsoonaado lana aamino gabdhihiina unemployment rate uu magaraysaa hoos u dhaco ay gabdhaha shaqaalaystaan gabdhaha ka shaqeeya maqaayadaha ayaa la sheegaa inay uga soo jiidashadiisa oo dhaweyn badan yihiin marka loo barbardhigo wiilasha waxaa sidaa noo sheegtay maamulaha maqaayadan inay u doorbiday shaqaalaysiinta gabdho badan oo xirfadlayaal ah marka aan maqaayada fureyne maxaa la fikirkeenu wuxuu ahaa ina بريوتيga aan siin yani badnaad aan siin ina gabdhaha shaqaalaysiino taas aan ugu kaliftay ina gabdho badan oo maqaayadan aan shaqo ka siin sababtoo ah waxaan rabnay bulshada inaan tusno gabdhaha inay yihiin gabdho shaqay karo wax qabsan karo oo wax tar leh sas awgeeda u siinay gabdhaha shaqada wallahi aniga maqaayadan gabdho badan aan soo shaqeeyaan sida loo fur ilaa had gabdhaha ka shaqeeyaan boqolkiiba 90 gabdhaha waa dadka ugu fiican shaqada markii la dhanka service-ka soo dhaweynta kale macaamiil wanaag oo kale gabdhaha waa gabdhaha ugu fiican ayaa inta badan gabdho markii ay imaadaan oo kale ee shaqo ay rabaan ee cabsanayaan in xishoonayaan mar walba waxa ku dhiirigali jiray inay naqdaan gabdho wax qabsan karo oo shaqaysan karo ee cabsida xishoodka iska saaraan gabdho badan hadda waxa jira oo ay imaadeen oo leeyihiin shaqadan waa rabnaa laakiin waa ka cabsanayna wax xishoonayna maxaa sameynaa markaas waxaan sameey jir inaan ku dhiirigeliyo oo dhaho baaha cabsanin waa shaqaysan kartaa wax walba qabsan kartaa marka is dhiirigeli gabdho badan waxa jira oo sas qaateen oo shaqeeyaan oo hadda meel kale ka shaqeeyaan xitaa
mudnaantana horta gabdhaha inta badan waxaa jecelahay inaa shaqo sii sababto ah wiilish inta badan shaqo yaraasan karaan laakiin gabar way adag tahay inay baxdo oo maalinba ay tagto maqaayad ay dhahdo shaqo u baahanahay Soomaaliya oo dhaqan ahaan aan jeclayn in haweenku ay shaqooyinka qaar qabtaan waxay hadda qaar badan oo kamid ah aaminsan yihiin in habluhu ay ciyaari karaan mid la mid ah doorka ragga oo ay tahay inay ku dhiiradaan shaqooyin badan oo ay ragga gooni la ahaan jireen in la fahmo in gabdhuhu ay ka shaqeyn karaan howlo badan oo tani ay kamid tahay ayaa waxa door muhiim ah ka qaatay bulshadeena Soomaaliyeed ee nooga yimid qurbaha naguna soo biiriyay afkaar badan oo dhanka horumarka u adeegaya anigii dadkii la midka ah ay ku cusub tahay in marka la joogo maqaayadaha ay kula kulmaan gabdho u shaqeynaya sida ragii oo kale halka looga barto markii hore in raggu ay ka qaadaan dalabaadka waxay markii hore sida caadiga ah la aaminsan yahay ama la arki jiray ahayd in gabdhuhu ku koobnaadaan halka laga soo galayo maqaayada oo kale oo ay qaabilsanaadaan barista dumarka soo galaya maqaayadaas iyada ah tani waxa ay noqon kartaa fursado shaqo oo ay dumarka ku kalifayso inay qaataan fikradaha ah oo aanay ku koobnaan in xafiiso kaliya shaqo laga raadiyo balse tani ay kamid tahay waxbaha ay ku shaqeyn karaan oo ay la soo dhaxgali karaan bulshadana ay noqon karto qayb muhiim ah oo kaga banaan dhaqan Umar Goobjoog TV